السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي حبوني دين soo gaaraya magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa sheegay in fanaanka caanka ah Sakariya Kobciye iyo marwadiisa cusub meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Haddaba daawadayaal waa tuma marwada cusub ee Sakariya Kobciye uu guursaday barnaamijka in ku daaqaadi doona ha yeeshee daawada intaynan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahay subscribe saar asxaabtaada la wadaag ku soo dhawaada barnaamijka 25 bishii la soo dhaafay August ayay ahayd markii fanaan ka tirsan kooxda xidigaha geeska ee magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland uu guursaday gabadh lagu magacaabo Hani Umar Ali. lamaanahan ayaa meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya gaar ahaan Hotel Elite. fanaanka Sakariya Kobciye ayaa hore u qabay fanaanada caanka Idil Barkhad oo ku nool wadankaasi Norway qaaradda Yurub, balse waayihii dambe ayaa labadan fanaan xiriirkoodu aad u xumaaday. وانا فنانة إيدل برخاد أيا فنانة سنجل مادرة أو كونول ودنك النرويج. وانا فنانة سنجل مادرة أو أنا لا شانقادي كرين فنان كان أبوان ندى يولي فنان مدى يولي لما حميستها يسكدر صدي أهنا فنان عادو ضايع. وانا سكرية كبعية أيا فنان قبصدي قلبي هذا الشعب الصومالي دا سندي لابد يكون يسديد يتوانكي كدي مركي وصاق عليه هستها أوين. وانا heestaasi oo qabsatay hal mar baraha bulshada ee Soomaalida sida Facebook iyo Instagram iyo wali aaladan cusub ee TikTok. waana Sakariya Kobciye oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Sakariya Kobciye ayaa booqday bilihii u dambeeyay magaalooyin badan oo Soomaalida sida oo u dhaca gobolada iyo bartamaha koonfurta Soomaaliya sida Garowe iyo Dhuusamareeb. halkaas oo fanaanku Sakariya Kobciye uu heeso waalaha ugu qaaday madaxda Soomaalida gaar ahaan kuwa maamul goboleedyada. waana Sakariya Kobciye oo madaxda maamul goboleedyada mid hees ugu qaaday sida madaxda maamul goboleedka Jubaland, Puntland iyo waliba Hirshabelle. waxaan ka marnayn iyadana maamul goboleedka Galmudug oo marti u ahaa fanaanku. fanaanadan Idil Barkhad ayaa waxaa filan waa ku noqotay meherka cusub ee saygeeda uu mehersaday gabadhan daada yar ee lagu magacaabo Hani Umar Ali. Sakariya Kobciye ayaa Idil Barkhad qaba muddo 3 sano ku dhow iyadoo aan hal mar booqan saygeeda uguna aan tagin magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland halkaas oo fanaanku muddooyinkii dambe ku sugnaa. iyadoo Sakariya Kobciye uu yahay fanaan abwaan cod macaan codkiisuna uu toolmoon yahay si fududna u soo jiidan kara gabdhaha Soomaalida ayay iska indhatirtay fanaanada Idil Barkhad aanina hal mar booqan saygeeda isagoo qaba muddo 3 sano ku dhow. وانا Sakariya Kobciye oo ka tirsan kooxda xidigaha geeska waana kooxda xidigaha geeska fanaaniinta ragga ay qabaan guud ahaanba gabdho fanaaniina iyo wali kuwa fanaaniin ahayn oo ku nool guud ahaanba wadamada reer galbeedka iyo dibadda kuwaas oo sanad walba ku booqda magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland. haddaba daawadayaal fanaanada Idil Barkhad ayaa waxa ay filan waa ku noqotay meherkan saygeeda iyadoo baraha bulshada ka aragtay hambalyada loo dirayo fanaankan Sakariya Kobciye iyo marwadiisa Hani Umar Ali. fanaanada Idil Barkhad ayaa ka dalbatay saygeeda inuu furo, balse fanaanka caanka ah Sakariya Kobciye ayaan ka labayn furiinka uu furayo fanaanada Idil Barkhad. haddaba daawadayaal wixii ka soo kordhaa waxaad kala socon doontaan wararka iyaga dambe.